Yaxya Samatar oo ah nin Soomaali oo dabaal ka bilaabay gobolka North Dakota ee wadanka Mareykanka kuna gaadhay gobolka Manitoba ee dalka Canada isagoo dhex jibaaxay webiga Red River ayaa maxkamadii ay u ogolaatay inuu qaxoontinimo uu ku joogo dalkaasi maalintii shalay iyadoo dib aan loogu celin doonin wadankii uu ka yimi wax yar kadib dhageysigii dacwadda oo ka socotay dhismaha Victoria ee magaalada Winnipeg waxa uu Mr. Samatar oo la cadeynaya uu sheegay telefishinka CBC in hadda diiradda uu saarayo mustaqbalkiisa isagoo ku hadlayay af Ingiriisi jajaba waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in dastuurka Canada uu siiyay qaxoontinimo laga bilaabo maanta garyaqaanka u doodaya Mr. Samatar oo magaciisa la yiraahdo Bashir Khan ayaa sheegay in xukunkii dhacay Arbacadii uu siinayo qofkii uu doodaya deganaansho Wrigley inta u dhaxaysa 12 bilood ilaa 14 bilood gudahood marka ay taasi suurta gashana waxaaskiisa iyo caruurtiisu ay heli doonaan qaxoontinimo la mid ah tani iyagoo dhalashada Canada sugi doona muddo 3 sano Mr. Samatar oo dalkiisa ka ahaa qof u dooda xuquuqda aadamuhu waxa uu sheegay inuu dil ka wajahay al-shabaab oo koox mintid oo xiriir la leh al-Qaacida taasoo cabsi ku abuurtay noloshiisa waxaana uu ka tagay qoyskiisa bishii August ee sanadkii 2014 mukhallasiin dadka dhoofiyo uu siiyay lacag ayaa geeyay dalka Ethiopia kadibna Brazil kadibna bartamaha America isagoo ugu dambeeyna gaaray wadanka Mareykanka markii carrada America uu tagay waxa 6 bilood lagu hayay xarun dadka lagu xidho iyadoo loo diiday qaxoontinimo uu codsaday Yaxya Samatar waxa uu jihaystay dhanka waqooyi ee Canada gaar ahaan gobolka North Dakota oo ku yaala sohdinta Mareykanka 6 subaxnimo 5 bishii August ee sanadkani waxa uu dul joogsaday webiga Red River isagoo isha ku hayay gobolka Manitoba waxaana uu ku booday biyaha oo ku dabaashay wax yar kadib waxa Samatar oo xidhan hoos ka gashay arkay nin marayay dhanka kale jidka meel ka baxsan deegaanka Emerson waxaana ninkaasi uu siiyay dhar iyo biyo wacabo isagoo uu yeeray kooxaha gargaarka degdega oo yana xiriir la sameeyay saraakiisha xuduudda Yaxya Samatar waxa kadib loo qaaday saldhig ku yaala xadka halkaas oo lagu waraystay kadibna waxa loo gudbiyay guriga soo dhaweynta ee magaalada Winnipeg oo ay leedahay wasaaradda qaxoontigu Mr. Yaxya Samatar waxa uu sheegay inaanu aamini kareynin inuu yimid dalka Canada isagoo magaalada Winnipegna aan ku sugi kareynin qoyskiisa oo ku nool wadanka Soomaaliya